السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سودو هذا أصحابتا halkan waa channelka Faaliya Dadaab ala waa kala barateen in warbixinada iyo dadka hibada u leh abwaaninta halkan ka daawataan maanta waxa la jooga abwaan caan ah oo caan ka ah dunida Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxa la dhahay Ciise Cabdullaahi abwaan Cabdullaahi aadan Sheekh Maxamed oo joobe ku magac dheer abwaan soo dhow waan dhawahay aad iyo aad baan dhawahay abwaanka waa abwaan ka mid ah abwaaniinta ku nool xerooyinka Dadaab maadaama uu soo maray wadan badan laakiin hadda wuxuu joogaa xerooyinka Dadaab abwaan su'aal kaftan ku bilaabay marka hore maxay kaga dhigan tahay abwaan joogo xero qaxooti adduunka muxuu ka qaban karaa wallaahi waa dhibaato weyn waxa kala jira waxa la yiraahdo horta laba kala jira abwaan iyo hal abuur qof hal abuura oo wuxuu sameeyaa macnaha tix saad la socoto hadalka aynu ku hadlayna laba loo qaybiya tix ama tiraab baa la dhahaa macnaha marka tix ahaan macnaha waqtigan iyo wacyiga lagu jiray iyo halkan iyo maadaama abwaan nin muhiimtiisa la dhahaa eriga abwaan Soomaalidu ama ninkii gabiya ama kii heesa ama kii sameeyay u taqaana anigu hal abuur baan isku magacaabi lahaa oo abwaannimadaas waa qariyaan waxa weeye waa mid wax lagu muhiimtiisa oo muhiimtiis weyn waa mashruuc adiga la faaliha qaranka laftiisa baa abwaan noqon kara maadaama aad u furtay waa diyaar laakiin bulshada reer Daabeed inta ku garanayso ay ku garanayaan abwaan aad weyn abwaan bay garanayaan inta garanayso waayaha Dadaabed maxaa ka tarisay niyo waayaha Dadaabed de waqti badan oo hadda muddo 3 sano ku dhow baynu joognaa de waan ciraystay maalintan mid aniga oo yara baan mid baan u maleynayaa sidaas haddii aan ku bilaabo maanta waxa la yiri waayaha Dadaabed baa jirtay waa 30 sano iyo dheeraad waxaan dhex joogaa qaxootiga Dadaabed gaar ahaan dhagaxley dhuuniga la quutana WFP iyo waxa dhiiba keerbay dadku igu dhahayaan xiriyaha dhamaantood dhanka nolosha way isku mid waxba la isma dhaamo looma dhoofi karo meel lama dhaafo xagar dheer dhalinyariyo waayeen jeelda ka banaanbay dadku wada dhex jiifaan aqal dhibicda roobkiyo dhaxanta aad ka galayso dhisan meesha kuma yaal bulukeeti dhooqa markuu daadku dhinacyada kaaga soo dhirbaaxana kugu soo dhacaya hooy laga dhigtaayo dhowr sano ku nool abwaan hore wuxuu dhaxay dhul shisheeye dheef ma leh habeen dhixitin mooye Soomaalidu dhib badanaa maxaa dhiisha ceebeed dhabarkeeda ku xidhay sharafteedan dheeliday kama dhiidhiyayse markaan aad u dhuuxeen dhadhansaday warkeedana dhalanteed moodada hadbadhadiya ceeriyaan dhaankeeda ku ungow dabba ceelka loo maro dhaayaheedu ma arkaan sida awr dhunkaal qabay meelaha dhadhacaysa dhiigii cabku oo sheekh dadka dhibuhu waa waday war ma haysid dheegow alla ilaahay waxba dhacay nagu dhacay Soomaali ku dhacay ku wada dhacay dhamaan hadda intaan ka xasuustay maasadii waayaha Dadaabed intaasaan ka xasuustaa taariibta oo kale taariibka hadda maadaama qaxooti aan joogno xero qaxooti oo badanaa taariib loo baxo hadda tirato waxa la soo diray wiil ka baxay county-ga Dadaab Gaarisa joogno hadda wiil Gaarisa ka baxay oo la qaraacay magafo uu ku taagan yahay maamo hooyis abis inkastoo ay dhinteen maamo waayeel oo ay soo korsatay marka baraha bulshada soo geliya cuniga saameyn ayuu ku yeeshay Soomaaliya dad badan ka dhidiyay marka maanta maxaa ka tirinaa taariibtan waxaan ka tirin lahaa anigu horta taariibta dadka ay dhibaatada weyn u geystay baan kamid ah waayo dad dhakada tima kulay oo afar ciyaal iyo hooyo dambada kaga yimid aniga laftayda 1997
waxaanu ka tahriibnay magaalo xeebeed la yidhaahdo waqooyi bari magaalo madaxda waqooyi bari hadda dee puntland waxbaa u taqaanaa badar qaasim iyo baa loodhan jiray gaadhiwa iyo magacyo badan bay lahayd sidaas daraaddeed baashu anigaaba dhibaato iyo dhaawac weyn ii geysatay aan weli ka soo waaqsan aan kula qaybsado islaantii markaa gabadhii aan jeclaa aanu dee ahayd xaaskayga waxaa dhacday in lacagna loo soo diro la yidhaahdo waxaad timaadaan meesha la yidhaahdo yaman oo sancaa kadib waxaa weeye yaroo dhaqaalaha baana loo soo diro aan ku soo tahrino malakulmowdkii baana loo soo diray lacag maayna malakulmowdkaygii bay ahayd malakulmowdkii bay ahayd kadib iyadiiba waxaan ku waaniyey horta gabayaan ereyaan ku waaniyey tixo oo aad u tirisay waxaan ku idhi sida cada nin tegayo badweyn laashka kula cariyey oo uu yaxaas cunay ayaan kuu cabsanayaaye carradaada joog gabadhii hees carqaladayne dumar carab u tegey faadumay ceebahood badan kuwii horeba cuud sooma dhaqan diinna caasiye shirarkaaba laga caayaya caashe iyo luul adna waad ku sii cararaysaa saad cawaan tahay cidaan adii hayn waana dheer kuma casuumeene carcaraafka daaya u walaal calafka iimaanso anigana cidliyo caashaq iyo cadow ha iloogin oo caawa waa ladanahayna kala caydhi baan ku yidhi bartaas khatar weeye nagadaa ilaahay amarkii ma solosiinin sidii baanu ku dhaqaajannay 8 saac oo maalinle baanu baxnay maalintii intii kaadhay baanu sii socnay habeenkii baanu sii socnay subaxii dambe markay ahayd 10kii barqannimo ama 4 saac siduu qof u yaqaan doonidii duqaysay ha ku daaya wararku si walba farsamo la isku dayna cabaara in la farsameeyo kadib waa la garan waay halkaasaa macnaha waa baddaanu ku dhex jirnaa baddaanu ku dhex jirnaayo bad waxa weeye horta bad haddaad saaran tahay ilaahay waxaad doonidu kaa xumato ilaahay duufaan ka bari meelunbu kaa tuurayaa meelunbay kaa tuurtaa bar hadday baddu degan tahay oo xawaali ay tahay dadka baddhacay oo hadba xagganna ka imanayso oo cirkaasunbaa kuu muuqanaya iyo bad waa intaa marka halkaa markaanu marayno ciyaalkayga horta dad raac igu horreeyey ku jira maalintii shanaad way raaceen halkaas idaacaddoodu way ka baxday marka waxaa soo harteen adiga islaanta bis islaantiina way ka daba tagtay ayayna ka daba tagtay keligaa soo hartay halkaa isu ku dumay marka arrin waxaa jirtay 9 baanu hayno anaa saaka ka nool la yidhahdaa jirtayoo dhacdooyinkii macnaha adigu 17 beri baan saaraa badda 17 beri baan saaraa waa ku jirtay sida dadka qaarkood baddhaca ka warqabaana baddu 24 saacadood ba hal saac bay macaan tahay la yidhaahdaa anigu mar waan la kulmo horta iyadoo macaan waan arkay ayadoo qareerna waan aragtay baka soo dhintay waan arkay marka halkaa markaanu marayno waxaa garoonkii aakhiro maanse la dhaho baa halkaa ka soo baxaysa wuxuu leeyahay anoo gallad eebbe iyo gargaar wacan haysta buu kibirku geed aad u dheer gurada iga saarayo markaan gogashii dhigteen isidhi gamaan raaxado jannada gaadhiga u raac ayaan soo giraangirto mawjado wada guuxa iyo bad baan daakhalkeeda galay war ma garata nibiri daba gaaban iyo yaxaas indhagiiran iyo kalluun gurigiisa tegey wadnaha i gariirayoo naftaaga gadoontayoo gidaarkii doonidan madaxa ku gig siiyeyoo musmaar afka muuran iyo alwaax garabkayga muday markuu laashugaaska iyo biyihii naga goostabay dadkii gaajiya haraad cunuhu wada gowracmo markaan geestaa horiyo gadaal soo fiiriyaba haween la gunaanadiyo carruur go'aysaan arkaa xataa gacaladaan jeclaa xataa gabannadii aan dhalay gabboodsa raggaan lahaa saaxiibbaday gaar ahaan giddiba gacalkaan jeclaa dadkii wada geeriyo subxaan allah dhimashaa la guddoonsado naftaa layska geyey meel garoonkii aakharaad tiidhka laga goynaya garoonkii aakharaan tagnay oo diyaarado u baxaya falayo badan baa u baxaya
garoonkii aakhara tigidhkii laga goynayaa ileen markab gaal wataa halkaa waxa weeye badda dee gaadiidka badda mara waxbaa baabuur waxaa maraakiib waaweyn oo iska maraysa oo aad jeclaan lahayd inay ku hiiliyaan oo ay kaa qaadaan ileen markab gaal wataa haddaad go'a taagtay iyo haddaad gacan haadisaba dhibaatada kaama guro ileen guulaha ilaah haddaanu bannaanku geyn baxarka kama gudubtidoo ma gaadhid halkaad jeclayd ileen buuraha galbeed buura noo muuqanaya badda dhexdeeda buura ka muuqanaya ileen buuraha galbeed galabti kaaga muuqda ee naftaadu u geedi tahay intay gurmad kuu noqdaan berriga sooma guuriyaan ma jira geed la cuskadaa badweyn baan gunteeda iyo gusheeda ka heesaya haddaan gerigo'aan cidlaa u guuray anoo fayow ma hayo cidan garabsadee ilaah baan gargaar ka sugi marka badda geed ma la qabsaday waa badda geed baan ku hadlaynaa markaa kadib waanu soo baxnay markaasaanu haddana adigu muddo dee waanu 17 beri muddo lagu qiyaaso baa qolo noogu dhiibaysay markaasaan inaanu saaxiib ahayn baa wuxuu igu canaantay wariyo badda dhibaatadaasoo dhan aday noogu canaa markaasaa waxaan ku idhi bakhtiyaa nasiibka cabdow qaarba baab yahay marka badda laga gudbaa huuri baa lagu badbaadaa huuriga dee waa isla naqanaay waa qabaalka yare badda laga gudbaa huuri baa lagu badbaadaa marka bira ah baa kula degoo lagu basbeelaa bakhtiyaa nasiibka cabdow qaarba baab yahay bahalkaynu raacnaa ahaa beliye shaydaan sin baa nooga baaqaayay oo soo baxa yidhi qabaal 10 in aan kaba badnayn 100 ku sii fuullay qaar saacaddii lala ballaabay buuxsantaa jiray inna baahidii haysay gubaysay beerkiisa isma uu lahayn soo barobada u sheekeeye anna uma badheereen haddaan sii bidhaansado biyaad waay milixdaad qurqurin bishimahaad leefi badh baa waalan qayb baa bakhtii xuudku kala boobi barbaraad ka caaridi naftaa baaqi sii hadhi beeyeysataad heli beeyeysataad heli aday kuu birmanayaan boggaa lagugu qaban wiilalbaa gogosha kuu baceen boggaa lagu qaban wiilalbaa gogosha kuu baceen bari iyo kalluun bay ku siin beer iyo kalluun bay ku siin barina kuu shiili boggaa lagugu qaban wiilalbaa ninna isma lahayn soo barobada u sheekeeye wariyo barwaaqo iyo khayr hadduu eebba naga baajiye baan ku idhi waa barwaaqo iyo khayr hadduu eebba naga baajay waa silsilada baddaa la dhahaa way socotaa maydh iyo xiis meel la ydhahdaan nimi kadib maxaa dhacay waxaa dhacay de adigu 5 bilood baan anigu 6 bilood baan horta iska maqnaa idaacadayda iyo nadwogaygu 6 bilood bay iska maqnaa dee wixii manuma garanayaba anigu islaan meesha joogto maqaamka sheekh baan anoo u shaqaynaya un baan arkaa islaan caashaawliye la yidhahdo jiniyiisi waxayd ilaa hadda ma garanaya baan ku oo meel baqaar lacag baa dadka ugu yimaado markaas waxa la islaamaha dhali waaye waxaasay daawaysaa caashaawliya la yidhahdaa oo culumo waaweyn wey markaas markan 6 bilood kadib baan soo baraarugay hay'ad action aid la yidhaahdo Maraykan aan malinaya waa meelaha laga daawaysiin iski mar labaad bay nadwogay soo noqday ma garatay markaas aan xulay cagaankay musitay dabada ku soo tuurtay oo ku liqday oo sheekha ku soo badbaadiyay shiisa subhanaka ya cadiim soo sheekha ku soo ilaahay badbaadiyay ayaa sheekhna nama soo badbaadine halkaan ka nimid noo sheeg سترساي ساويه اخي هاي خلافين هو خلافنايو هدان كا تغي هاي حق بخاركن لعي كبخدو لعي سومالي iyo wax kalaba baan halkan intaan qaar ka fujistay baan dhaq soo dhaqash markaas waxaan sii waniyo dadkii reer mayd maxaad uga tagtaa waxaan ku yiri dadka mayd ku noolow salaan miidhaniga hooya dadka mayd ku noolow salaan miidhaniga hooya
sida malabka doocaanta haniyad lagu mataalayo oo aad macaanku ugu batay iyo muxibo dheeraada oo laga maarmaana baan idin muquursiin ma moogeen waxaad noo tarteen maalmihii tagay habeenkoo madowbu aniga iga hor muuqda marna inaanu qaal maankiyo qalbiga kaba maqnaanayn oo aan ku madadaashadoon idinku maamuuso ayaan marg ilaahay ka ay doqoni waa moogi mawjadiina soo tuurtay iyo maayadaha xeebta miyigaanu dalandoolaniyo milc kuleylkeeda dib wixiina soo maray macaluusha iyo gaajada iyo murugadii daalka dib wixiina soo maray ayaa madaxa saarteen waanu maran lahaynoo runtii midima fiigeen idinkaa micii noo noqday nolol ma raadseen yaa maruun baan abaalkiina gudi mawd hadduu idaayo maruun baan maqaam sheekha iyo iman magaalka maca salaama macaariif allahi muqarraq weeyaan tuwa muqarraqa waa ninkii badda halkaas intaasaan kaga yimi wada way sii soconaysaa ilaa iyo bariba iman bartay ka baxday bay imanaysaa halkii bay imanaysaa marka lacagtaas oo aad cidda kaa dumisay oo ku waday oo maamadii kaa waday ma Mareykan meelaha laga soo diyo oo lagu waday waxaan maqan sponsor daan waa faqalad ma aqaan waxba la yiri isla habeeniya ha waxa timaadaan caasimada Yemen ee Sanca la yiraahdo kaaleya hooy lacag $2,000 buuga la soo diray waxaan laga soo diray xagga gabadha ismina dhaqaashin kartid moogtay waan maada leh adigu lacag ma baad liga raxiidka soo hadlaan no ma oran alaabta gad meedayd baan iska haysanayo anu farsamaydu nin kuuga baan iska raashinka kariya kuug ama kooke ama kariya goobaba si buu yaqaanaa sidaasana waxaanu dib baan noqday barti baan ku noqday namba saa ii fiirfiirinaya waan arkay oo dadkii qof waalna way moodayaan lix biloodna waxa la ninkii u dhintay reer aakhirad ninka soo baxay oo kale ayaa noqday koodhe marka dhibaatooyinka baddu ay leedahay baan macnaha doonaynaa in aan uga digno faaliyaha qaranka aad ka sheegtaan dadka reer dhadhaabeed ee qaxooti baad tahay adiga taariibaad waad soo lugaysay taariib beriyaad soo martay bad taariibada ay sugelinayo waan kula dardaarmaya wiilka reer dhadhaabeed qaxootiga ma kawlaa ama tobanlaaho walaahi halkaagaasaa kugu fiicane aad iskaga cararaysay dalka moordida ilaahay iska cuniyo barwaaqaad ku jirtaa koodhe markaasaa waxaan tegey bartii waxaan niman yahow adduun fiiriyey oo malaha faa'iid waa filin wareegaya iyo noocyo faraweyn adoo faraqu kuu buuxa oo farax la heesaya oo fiican oo ladan mar way bala ku fuushaa fikir iyo la yaabaa badala kibir kufaanka waxaad fiirinayso dhani marbay kala fininaan amba kama fikirin mawjadii laga gudfuray baasaboorka iyo fiisada iyo ficiladii dhoofka lacagtii aan fududeeyo dollarkii finishid weeyaan finishid weeyaan waxaa la qaatado miskii cunto lacagtada waqtigaygu foorjeeyay oo faaruq baan ahay magacayga naanaysa fuja xagga laga hor jiray de gobol kasta naanis baan ku leeyahay waa Soomaali meel kasto aad tagto naanis baad ku yeelanaysaa waxaan magacaaga istacaaday abaan fuja leeyahay abaan fuje nimaya waa duun fiiriyo malaha faa'iid malaha waa filin wareegaya iyo noocyo faraweyn adoo faraq ku buuxa oo farax leesaya oo fiican oo ladan ayay bala ku fuushaa amba kama fakirin mawjadii laga gudfuray inaan fujiye ahay waa taqawana faantan feedhaad iga maraysaan sidii aan fatooshahay faxal baan ahaan jiray runtii fidiyada aqroon yaa madax fard ayaan qaadayo mana fayoobaan fiidkii aroortii ayaan 5 gashanaya waqtigii dani uu amal waalana de 5 gaasa igu jira 5 baa igu go'an baa go'ay madax farad ayaan qaadayo mana fayoobaane fiidkii aroortii ayaa 5 gashanaya inta aanan faaliyo dhambaal idinka sii faafin fooraha dhacayo milicda iga fadhiisiya waa dadkii asxaabtii qaraabada ahayd moogta waan leeyahay waar iga fadhiisiya niyow markaa taariibtu waa soo tahriibay waa tirban tahay xagga deen siyaasi taraxmo horta niyow horta faalihiina qaranka tan iyo maalintii la furay
yaa barnaamijkan faaliyaha tan iyo maalintii la furay intaan farsamiyo aqoon ka faa'iiday baa badnaa yaa runtuu ka fogaadayo been buu ka fogaadayo runtuu aad u faafiya soomaalidan firiqsan ee adduunka ku faaftay baa mid walba qof kasta faamilkiisa ay fariinta u geysana yaa faaliyuhu qaranku fiicana faaliyaha qaranku wanaagsana alla ilaha fiicana codkiisu fasaxsana waa in faaliyaha qaranka intaan ku salaamaya deelan faaliyaha qaranka wuxuu baahay maansa kale isaga laftiisa dee lagu xayeysiyo qaabka uu shaqeeyo qaabka bulshada uu tabiyo meelaha fofog maadaama ay tahay maalintii aniga igu horeysay waxaan idin leeyahay halkaa ka sii wada halkaa ka sii wada abaan idin leeyahay barnaamijyada bulshadu haysaan waa barnaamijyo aad u wacan waxaan arkay inaad tirisay heeso qaar oo heeso aad qaaday oo aad tirisay oo aad qortay soo ma jiraan heeso aad qortay hal ilaa nooga taabo heeso aan qoraya heeso malaade hadda xay ugu dambeeyay mid baan qorayay waxa la yiraahdaa horta meel la yiraahdo gureyska ma taqaana guraysku waa buuraha jigjigees ku gadaa waaweyn ku hoostira la dhahay buurta gurays baa la dhahaa anaga dhadheewan ku dhalanay ma garanayna gurays Soomaaliyan ka halkan maanta ku qoran wuxuu leeyahay buurtii gurays iyo garab casa dhexdeediyo buurtii gurays iyo garab casa dhexdeedaad gacalay ku dhalato xaruntii garaadkaad qaangaad ku noqotay waa xaruntii wiilwaalde ogaadaniyo wiilwaalka waa kii la yaqaanay caanka khatarta bilada buurtii guraysiyo garab casa dhexdeedaad yaa gacalay ku dhalato xaruntii garaadkaad qaangaad ku noqoto guulaha ilaahba qurux kugu gadaamo gobolada dalkeena iyo geygaan ku noolnahay gabadh adiga kula mid ah gubaaday kumaan arag inta gubaad baa la ilaa moogta caashaqan guyaal hore gooshiisa laabeen niyadana ka gooyaad yaa niyadana ka gooye gaaxadeen ka quustaad godol qaaday maante gorof miyaan hogaystaa gaawaha ma keena yaanu gooni igu noqon go'day geesta ila qabo shacayl baadi geliso wadnahaad u gudubtee adiguna garwaaqso ila garo waxaan rabo goor horeaan ku talagalay gelbiskiiyo arooske wakhti gaabinaayo waayaha gurguurtaa gadaal ii dhigaaye wakhti gaabinayaa gaasiray naftaydoo gadaal ii dhigaaye go'aankaygu waa kaas adiguna guddoonoo haygu saydhin gacantoo bingeed dheer biladgeesi qaadoo ku guulaysa caashaqa aynu guri samayne waxaan gayaankay uga soo gadoomeen adigooni way soconaysaa way dhammaanaysaa caashaqa haddaad doonaysaan caashaqyo fara badan baan tirin